gabadha yacnihii iyo wiilka waxaa laga yaabaa 1 year 2 year intay wada dimoogta ay sheekaystaan ayagu weliba isku lus garaynaya time isku lus garaynaya in haddana xaflad qaabkan oo kale ay dhigtaan dabcan aniga waxa igala qiimo badnayd farxadeeda qalinjebinta istuudiyaha telefishinka Hon Cable waxaa galabta nagu soo booqatay Khayr Cali Cismaan oo kamid ahayd ardaydii dhawaan ka baxay jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa Khayr dhawaan ayay magaalada Hargeysa ku qabsatay xaflad ay ugu dabaaldegaysay muddadii dheereed ee waxbarashadeeda soo waday taasoo ay kala soo qayb galeen asxaabteeda iyo waliba eheladeedu Khayr ku soo dhaw marka hore Hon Cable TV dad badan ayaa isweydiinaya ardaydu inta badan marka ay ka qalin jabiyeen jaamacadaha dalka siiba habluhu ma dhigi jirin xaflado inta leeg marka loo eego dabaaldegooda adigu ardaydii ugu horeysay ee falkaasi sameysay aad tahay hadalhayn badan way ka dhalatay marka loo eego baraha bulshada maxaa kugu kalifay maxaad kala kulantay filcilin waxaan kamid ahay ardaydii graduation garaysay sanadkan 21 kana dufcad waxaan ka baxay jaamacadda New Generation University College special 13 October 16 bishan October waxaan kamid ahaa dufcadii sagaalaad ee ka baxday jaamacadda New Generation dabcan waxaan ku jirta jaamacadda barashada jaamacadda ugu faaweyn inta markaan waxaan u mahadcelinayaa oo si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhammaan macallimiinteedii iyo maamulkayga jaamacadda New Generation University College inta kadib run ahaantii waxaa jirta xaflad aan qabsaday oo dabcan ka duwan xafladaha ay dadku badan ka qabsadaan kuna cusub nooceedani ku cusub yihiin yacni ku cusbaayeen wadanka ku cusbaa laakiin aan waxa oran karaa sababihii ugu waaweynaa qof walba kulay farxad uu qabsanay dabcan wiilal haday noqoto gabdhaha haday noqoto ifan qof walba uu qanjabiyay farxadiisa uu qabsanay dabcan anigana farxadeyda baa ila qurux badnaatay si dadka kale ka duwan aan soo bandhigo dabcan mana oran karo sabab inta ka weyn baa jirta oo igu kaliftay soo kale waxyaabihii filcilnimadii igu badnaa eegan la soo kulmay waxa kamid ah yacni dad gareedkayga aqooneed iyo waxyaabaha saameeyay aqooneed alxamdulillah waxaan ku jiray in badan baan kulay qof walba uu dareemi kara qof muddo beeran soo waday waxbarashada qiimaha agtiisa ka leedahay dabcan qof walba hadaf buu leeyahay waxaan anigu aad ugu faraxsanaa the first step in ku success gareeyo sida ugu quruxda badan dabcan ana walibana la kulmay aan graduate gareeyay sanadadii dadku yacni ay dadka aqoonta agtooda qiimo ka lahayd dabcan waayo waxa jiray moogtahay waqti aan dadku aqoonta saaloosi in gabdhaha soo kale aan wax bartay aanay bulshada qiimadaas uga sii dhaxlahayn laakiin waxaan joognaa waqti ay dumarka Soomaaliyeed ay maanta gabadha wax bartay ka duwan tahay gabadha aan waxba baran dabcan waxa xataa waxyaabaha igu saameynta badnaa waxa kamid ah in dadku ilaahayeen gabadhan qabiil dhanbay u qalin jabisay dabcan taas waxaan ka oranayaa maya iska da qabiil ase famigeyga ayaa 10 qof bay hooyadii aabahay dhalan dabcan hooyadii qof wax soo baratay weeyaan dabcan aabahay qof wax soo bartay waqtiyadii hore macallimiin dugsi buu ahaa xataa dabcan shan qofkii shanaad anigu aan ku ahayna famigeyga oo aanu shan ku ahayn way graduate gareyn dabcan heerarka kala duwan waxbarashadan way ka baxeen dabcan master ka sareysay gaareen dabcan waxay gaareen laakiin haddana gabadh markii wax bartay iyo wiil markii wax bartay is so different dabcan waan ku faraxsanahay anoo gabar ah in muddada inta la igu soo dhabar adayga dabcan badan waxa jiray ogaa yacni jaamacad ogaa inaan kamid ahaa ardayda ugu activity-ga badan galaaska dabcan ahaana ardayda waxbarashada ugu sida ugu fiican dabcan waxbarashadan ka baxayna dabcan ma yahay aqoonada ugu fudud maaha dabcan waa aqoon ugu badan still life way ku taxalluqda badbaadinta bulshada ama cilmiga caafimaadka loo yaqaano dabcan uma malaynayo waa wax ad noloshii dhabtaha bini'aadanka ayaad wax ka baranaysa dabcan aqoon maaha fudud waxay la tahay aqoonada kale inay ka adag tahay wallahi gareedkan ku baxay wuxuu gareedada ugu fiican alxamdulillah halkan waxaan ku hayaa waa buugaygii graduation ka ku graduate gareed dabcan waxa ku dhex jira sidoo kale GPA-gaygii dabcan GPA-gaygii dabcan ayaa ku dhex jira oo isaguna u badan A iyo B dhamaantood u badan dabcan taasna iguma kalifin dadka yacni ma jeclayn in dadka horkeena bulshada Soomaaliyeed laakiin dhaliilaha ugu xoogan ee ka kulmay waxa kamid ah in aqoonteeda wax laga sheego dabcan tusaale ahaan dad waxaan arkay gabadh aroos oo kale u dabaaldashay dabcan aan waxaan u malaynayaa 12 sano ayaan juhdo yacni waxa la yiraahdo qofku markuu wax baranayo wuxuu ku jiraa jihaad gabadha yacni iyo wiilka waxa laga yaabaa 1 year 2 year intay wada dimoogta ay sheekaystaan ayagu weliba isku lus garaynaya time isku lus garaynaya in haddana xaflad qaabkan oo kale ay dhigtaan dabcan aniga waxa igala qiimo badnayd farxadeeda qalinjebinta
intaasoo sana usoo dhabar adeegay marxalado kala duwan baan la soo kulmay dabcan marxaladaha alxamdulilah marxalad walba sidii ugu quruxda badneyd baan uga gudbay dabcan markaa waxaan odhan karaa dadka yacni yaan fikrad qaldan laga aaminin inuu qofka xafladiisa uu u dhigan karo qaab ka duwan dadka kale walaahi horta igumay jirin markii hore laakiin at last month bishii ugu dambeysay ayaan qorshahayga kusoo daray inaan xaflad saa u qurux badan aan qabsado dad waxaa jira marka jaamacadda geliyaan choice as another person ku gala dabcan aniga choicekayga kamid ahayd saan kuu sheegnay 5 qof ee familygayga kamid 5 qof waxay barteen caafimaad dabcan waxaan u baranayna waa in bulshadeeda Soomaaliyeed baahida ay u qabto caafimaadka maanta markaan aragnay anagoo ardayga ka qayb qaadan jirnay markuu covid-19 kii dhacayna dadka caawino ka qayb qaadanayna dabcan waaba anagoo maanta wax baranay inuu nooga wax badan naga sugayo dabcan waan ku rajaynayna wax badan ka bedelno caafimaadka maanta markaad eegtid dadkeeni caafimaadku wuxuu noqday waxyaabaha ugu qaalisan as payment ugu shaqeynaya yani in lacag la bixiyo bulshadeen waxay u badan tahay undeveloped bulshadooyinka la yaqaana dhaqaalahooda hooseeya ay u badan yihiin dabcan xataa markan activity-ga jaamacadda ka qayb qaadan waxaan research ku soo qaadan jirnay xaafadaha yani tusaale ahaan xaafadaha ay ku badan yihiin dadka dhaqaalahooda hooseeya dabcan marka xanuunada dulacaan oo kale meelahaas noo diri jirtay aan research ka soo qorno waxyaabaha aniga aadka aan hamigeyga aan isla insha Allah meeshaas wax badan baad ka bedeli doontaa waxa kamid ah hooyooyinka uur kale waxaan doonayaa hooyooyinka Soomaaliyeed noloshooda insha Allah inaan noqono qof u dhagan nugul aan noqono ayaan aad u rajaynaynaa insha Allah dabcan waan ku rajaynaynaa wax badan ka bedelno insha Allah